إنا لله وإنا إليه راجعون dhacdo argagax leh ayaa ka dhacday gudaha Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag ninkan aan idin la wadaagi doono goordhow xogtiisa meydkiisa iyo qayb kamid ah haraadiga jirkiisa ayaa laga soo qaaday goob cidla ah sida dadku ay noo sheegeen ninkan waxa cunay bahal iminkana waxa goobta laga qaadi doonaa qayb kamid ah haraadiga jirkiisa Allah u naxariisto waxaan adiga ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto commentiga aad ugu soo duceyso marxuumkan geeriyooday ee ay bahalada cuneen sidoo kale muuqaalkan aad foogeyso share gareyso si dhacdadan dad badan ay ugu baraarugaan Allah u naxariisto ninkan waxa lagu magacaabaa Faarax Mursal Ciidle waxa uu ahaa markaasi dadka deegaanka waxa uuna ahaa maalmihii u dambeysay sida ay noo sheegeen booliiska iyo qaybo kamid ah ehelkiisa in lagu ogaa safar uu ku mariyay degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ee Soomaaliland balse markii ayaa la waayay xogtiisa iraadkiisa gabi ahaanba waxa la waayay ninkan waxaana la ogaan waayay xaaladda dhabta ah oo xilliga ku sugnaa balse waxa la bilaabay baadi goob xoogan oo dhanka ehelkiisa iyo laamihii amniga ay bilaabeen si ninkan ugu yaraan xogtiisa loo helo loona ogaado goobta uu ku sugan yahay balse ugu dambeyntii waxa ay booliisku gacanta ku soo dhigeen duleedka Sanaagna ay ka soo heleen qaybo kamid ah haraadiga jirkiisa oo uu xitaa maqnaa qaybaha sare ee jirkiisa ee madaxa iyo qaybaha dambe ee jirkiisa waxa ay sheegeen booliiska in ninkan uu bahal goobtaasi ku cunay sidee lagu ogaado marka sida aad arki kartaan waxa la helay xogtiisa dhalashadiisa iyo sawiradiisa iyo magaciisa taasi oo ka caawisay booliiska iyo ehelkiisa inay xaqiijiyeen in qofka halkan ku geeriyooday ee ay bahaladu cuneen uu yahay qofkii maqnaa ee Faarax Mursal Ciidle eheladiisa iyo guud ahaan dadkii deegaanka ayaa dhacdadani aad uga walaacsan waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto oo aad sii share gareyso lana wadaagto saaxiibadaada si dhacdadan dad badan oo aan ka warqabin ay u ogaadaan aad baad u mahadsan tahay daawade mala dhiban tahay oo ma isku aragtaa qandho joogto ah madax xanuun laba zaa'ida bogo iyo beerka oo ku olola tabardarro zaa'ida xubnaha oo ku xanuuna ama socodka oo ku dhiba indhuhu ma ku madoobaadaan kaalay waxaan ku hayaa dhakhtarkaagii isbitaalka Fiqi Hospital waxa kugu diyaaro 24 saaxiigan kugu ah dhakhtar Fiqi oo in ka badan 30 sano taqasus leh caafimaadku waa qaali hadda gaar isbitaalka Fiqi oo kumaan eeb uu ku caafiyay ama kala xiriir lambarada shaashada kaaga muuqda